السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آذيات دمانتين آد بايدي سلامية وواسك تقبلوها قبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله مطاناين حاسقور سعيب كيس قرشو درس كيس كنولا وراونا قرسي كوسا هاجا بكجا لكتم على الشورية بناوين شان تابق بغوري ان أصحاب بدن او ان صاحب بناي فيسبوك يوتيوب يا سؤالي سوي ديني سؤال شاسو دقبلو واد حداث آد باد وعيلات عيل كينا هذا وكاد عي محاد عي محاد سميسي أنا لو حد دوني ناور بحنتا أنا نسيسيد أو أن مجرد ساي كاتو سالق هذا آديات ورون مركو سود واد آديات شرقية جارسية ميل والبا يو ميل كستكتورة إذا ماسن horta cayilka waa xanuun weey xanuuno badanna waa keenaa waa run anigu waa dhaxdaase aad baan u cayilay waxaana igu kalifay cayilkaasi wadada traaga yaan muddo saaraa waxoogoo ah waa markuu xanuunka corona uu bilowday bay ahayd waxaan gaaray ilaa 260 markaa waxay noqonaysaa adiga 100 kiilo ama 110 kiilo sida kala hadaa u sheego waa loos gareeyay hadda waxaan noqday 180 sida garbahayga ka arkaysaan 180 ya 180 pound ayaan hadda imaad marka waxaan rabaa marka inaan farsamada anigu aan sameeyay ee ii shaqeysay inaan idinkuna aan idila wadaago horta cayilku sidiisaba markuu ku fuulayo ma dareemaysid oo si fudud oo cuntada aad magaranaysaa oo bateedka uu ku furmo iyo kugu fuulaya laakiin inaad dajisid oo baruurtaasi iyo cayilka ku fuulay inuu ka dagto way adag tahay oo waqti iyo juhdi way u baahan tahay waxaan rabaa marka inaan qisada aniga iyo qaabka aan culayska u loos gareeyay baruurtu loos gareeyay inaan idinka sheekeeyo marka 260 pound aan gaaray caloosh waa ku weynaanaysaa waad cayilaysaa waad neeftuuraysaa cunaha iyo garka waa isku ka dhagayaan jaraanjar yar ma fuuli kartid waa dhib badan tahay aniga marka maalmaha kamida 2011 kan hadda aan ku jirno xaafadayda ka baxayay ma sha Allah shaqaan u socday traaga kabaha yaa rabina xirto kabihii baan xiran waay sababtoo cayilkii iyo calooshii oo weynaatay yaan kabihii la xiran waay heer waxay noqotay inaan jaraanjartaan hoos u dagto lugta aan soo saarto kadibna aan xarig xirto waxaan dareemay marka ayada oo aan realize gareeyay in macnaha wixii inta ka dambeeyay aan dhimasho macnaha aan isu diyaarinay waxaan sameeyay shaqadii baan galay meel track stop ayaan istaagay muraayadan isku fiiriyay waxaan arkay inaan xadaaf ahay baan arkay then arigiiba muraayadii iska daawanayo isla hadlayo waxaan yiri da'daada hadda ma weyno oo nin weyn oo 60 jir ah ama 50 jir ah oo give up gareeya ama noloshii hadda macnaha ka raja dhigay mati daada ninka ragga ugu wanaagsan yahayna waa ku jirtaa baan iri what's going on then waxaan ogaaday oo markaa dareemay in macnaha cayilkan inaan iska rudo ay daruuri tahay oo isan ahayn wax macnaha just like hadal ama isheg niyadda inaan ka caatoobo inaysan ahayn waa dareem waxaan isku dayay marka in aan cuntada yareeyo 2 week 3 week baa cunto yareeyay way ii shaqeyn weyso waxaan daawaday marka cadalad qof intuu cayilay caatoobay yaan dhageysto waxa ugu weyn markaasi dadku wax badan bay sheegeen marka YouTube oo kala gashay waxyaabo fara badan bay ku sheegeen laakiin qofkan marka aniga aan dhageysanayn cadaladiis kale wuxuu ii sheegay in macnaha marka koobaad ay tahay in mindset aad maskaxdaada ku sameeyay in macnaha marka hore qalbadaada ay gashaa oo ka dhaadhicisaa in aad magaranaysaa healthy aan noqonaysid
وبروتن إن اللوز جريسين قلبت هذا كذا العيسى أديكونا فعل سمينين عنتنا إسكدرين إكسايس نسمين إن النية ده دو شيء أما ديار ميان وهاي إن بروتن دمو iyo diyaar umii marka hore inaad qalbadaada weydiisid mindset maskaxda ku sameeyso taladaas tala wanaagsan bay niyadeyda waxaan gistay inaan baruurta loos gareeyo talaabada ugu horeysay marka qaaday aniga ii shaqeysay ya marka idin la wadaagaya qofkay u shaqeynayso dadku waa kala duwan yihiin jirkiisa iyo boodigiisa waa kala duwan yihiin marka aniga talada ii shaqeysay yaan idin siinaya marka anoona inaan ku shaqeyn doonto aniga caafimaadka uma shaqeeyo waxa laga yaabaa taladeeda inay qaldan tahay oo aysan ku anficin laakiin aniga way ii shaqeysay anoo duqbulow way ii shaqeysay baruurti caloosha waan loos gareeyay ma sha Allah I feel healthy aad yaad waa dib baan isu jeclaaday anoo duqbulow marka aniga waxa ii shaqeeyay waxa weeye subaxii aroortii markay tahay aan soo kaco aan shaqada galayo waa soo cadeynaya salaadii baan tukanayaa waxaan sameeynaya meel soo cunto cun lahaa ma quraan lahaa ma quraacanayo waxaan soo shubanayaa koob coffee ah oo black ah oo aan sokor ku darin oo aanan caano ku darin oo qaraar ah kaasaan cabayaa subaxii shaqadaydan galayaa waxaan bilaabayaa maalintayda markaas bilaabanaya duhurkii markay tahay 1 o'clock ilaa iyo 2 o'clock inta u dhaxayso yaan istaagayaa qado yaan u istaagayaa qadada marka anigu taraag laan ahay inta badan xaafadda ma joogo oo nin xaafadii jooga miye marka waxaan sameeynaya qadada markaan u istaago yaa waxaan gadanayaa cuntada ta ugu nadiifsan markaan kula ta ugu caafimaad fiican cuntooyinka kaleeto junk food ka ah wadooyinka lagu gado waa cuntooyin saliida iyo subaga iyo rootiga iyo cusbada way ku badan tahay markaan oo duqbulowe Mareykanka joogaa marka waxaan sameeyaa cuntada la yiraahdo Subway-ga yaan istaagaa waxaan ka gataa rootiga qamadiga ah iyo hilib oo beef markaas steak waxaan dhahaa basal igu dara barbarooni igu dara igu kulleeyo kadib baan qudradii kale wax ku darsan marka rootiga Subway-ga la qudrada marka ku badan oo waa yara health cuntooyin kale oo ka fiican kaasa marka mid dheer oo igu filan iyo biyihii baan cunaya oo cabaya waxa weeye shaqadaydan galayaa shanta markii la gaaro iyo habeenkii iyo gaajada marka cuntadiiba ka bixiso gaaja ku qabanayso markaas aan rabaa maskaxdaadii waxa u sheegtay inay markaas shaqeyso oo aad discipline idab inaad bartid markay tiraahdo maskaxdii cuntadii aad soo cuntay maanta waa dhamaatay cuntaad u baahan tahay maskaxdii iyo calooshii ay markaasi iswareerinayaan biyo cad yaan cabayaa biyaha cad markaan cabo shaqada ka baxo gym-kan tagaya 30 daqiiqo ayaan soconaya wixii bireen markaa qaadi karna waa qadaad only 1 hour kama badi waxaan sameeyay marka arinta ayada ah yaan muddo wada oo heerkan soo gaarsay marka labada week iyo saddexda week ee kugu horeyso bisha way dib badan tahay dabeecadaada isbedelayso xanaaqaaga badanayo cuntaad u baahan tahay because baruurtiya waxay rabtaa hilib badan iyo cunto badan iyo rooti badan inay cuntay doonaysaa markaas la doonayaa saddexda week inaad bartid oo tiraadid no baruur kugu filan jirkii waa kugu jirtaa rooti kugu filan hore baad u cuntay baasto kugu filan hore baad u cuntay waxa way marka cuntadaas cunaysaa aniga marka wadada jooga marka hadii adiga aad guriga joogtid oo aad arintan anigu sameeyo kala sameeyay waxa sameynaysaa maadaama aad guriga joogtid cunto healthy la karin karo waxa sameynaysaa cuntada hilibka oo markaasi protein rootiga waad iska yareynaysaa sokortana waad iska yareynaysaa cusbadana waad iska yareynaysaa hilibka oo biyo lagu kariyay ama si kala u sameeyso saliid ku yareysay yaad cunaysaa qudrad haday guriga taalo waad cunaysaa haday ka badan weysa xabad jab ah oo rooti ama xabad jab ah oo chapati ah yaad cunaysaa shanta cisho ee wiiga sidaas aad soo edbinaysaa maalinta marka ama jimcaha ah ama sabtida ah maalin kamid ah 7 cisho yaad qabsanaysaa maalintaas aad marka jirka ka farxinaysaa waxaad sameynaysaa markaas cuntada guriga laga kariyay ama maqaaxiba tagaysaa haday bariis tahay haday baasta tahay haday cunto yaad marka wax kugu filan halka maalin cunaysaa shanta maalin ee kale waa inaad cuntada idin bartaa marka cunto healthy ah
oo hilib borotiin uu ku jiro cusbadana ku yartaa burkana aad isaga ilaalinaysid sokortana aad isaga ilaalinaysid habeenkii ama galabtii markay taana aad 30 daqiiqo oo socode oo jirkaaga aad kala socodsiinaysid si baruurtii iyo wixii ay u shiilmaan aad iyo anigu marka arintaas aan sameeyay anigoo taraag wado oo wadada ku shaqeynayo waxaan sameeyay discipline baan baray nafsadaydi sababta ugu badan ee lagu caylino waxa weeye waa discipline la'aanta cuntada aad waqti walba cunaysid control kaan lahayn labadii saacba maskaxdaada caloosha u sheegaysa inay gaajeysan tahay laakiin ma gaajeysnid oo jirkaagii cunto iyo waa ku jirtaa iyo energy ku jira laakiin maskaxdii iyo calooshii waa signal khaldan isku diray waa tan lagu cayilo weey marka signalkaasi yaa la rabaa adiga marka inaad block gareysid oo discipline barto tiraadi no ma gaajeysni biyaan cabaya wad u diidaysaa saqajaanimada noocaas kale taa marka aniga arintaas ay shaqeysay maalintii marka hal mare ina wax cunta laga doonaya anigu caafimaadka uma shaqeey laakiin wixii aniga shaqeeyay baan idin soo gudbinaya halka maalintii 2 o'clock ila 1 o'clock yaan cuntada cunaya waxa weeye waan nafisaya kadib marka waa sidii baan ku soomaya soon bila ajre biyuun baan cabaya kaliya waa sidii baan ku seexanaya jim ku sameynaya maalinta kale qaxwadaan cabaya qadadii baan qadeynaya kadib sidii baan seekolkooda marka calooshaada iyo nafsadaada marka waa la qabsanaysaa calooshi marka waa yaraanaysaa way soo yaraanaysaa marka hadda aniga taas ay shaqeysay maadaama aan 260 ahaa hadda 180 mid almost 70 pound yaan lose gareeyay muddo ma garanaysaa kooban intii daawanaysay waa la socdaan muddo 4 bil 6 bilood ka hore sidaan hadda u ekaa uma ekeen marka ma sha Allah aniga taas ay shaqeysay sawirkayga dambeeyay saad arkaysaan midna calooshi weeyay midna waan caataan aadiyan marka intaan baan sameeyay intaasoo maalin walba oo ku celcelisay waana ii shaqeysay ma sha Allah anna waxaan rajeynayaa adigana ku shaqeysay aadiyan intaas weeye aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh